السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سودوا صاحبة قيمة هي قدرة مدن كحنا جنال كان ولا له فاميلي ومركل يا مقال عصبة داود ديدا مركو سبوقة الجنال كان سبسكرايب إنه صار سيدو كان مقال كان لايك إنه صار واتي داود المقال كان وحنوجه هذي دونا مسلسل كوالله هذا عن حلقة ديسة تضباطا يلا بعد فعلى ولا ميسترن معناها انتو قومهم كسان أي سوق عندنا دونا فعلى الله 20 دقيقة حق بدنا إن شاء الله تعالى جنال كبيتشوك موسى يدين سوفالين دونا markan bal muhiimada ayaan uga hadlaynaa muuqaalkan iyo xalqadii u dambeysay oo ahayd mid aad iyo aad u xiiso badneyd. Waday daawadayaal xalqada aad iyo aad u xiiso badneyd kadib markaan dhacdooyinka ugu muhiimsan soo qaadano waxaan ka daba tag doonaa goosgooska iyo sidoo kale iyo macluumaad kale oo idin sheegi doono. Hadaba xalqada ugu horeyntii dhacdo ugu muhiimsan waxa weeye dinkii dooruka haya Aasiya Samud ognahay xalqadii tan ka horeysay waxa dhacday in ay kala tagaan oo labadooda ay sida ku kala dhamaadaan balse dooruuk midaas muusan aqbalin Aasiyan waa uu soo dabagalaya halka ugu dambeeyay ku guuleysan doono inuu Aasiya la heshiiyo. Aasiyan way u waramaysaa waxayna ku dhahaysaa dooruuk hooyadaada waxay sameysay in ay maamulahayga u tagto shaqadana ay ka buriso Umar ay shaqada ka buriso. Dooruukna ugu horeyntii uu aamini waayay wuxuu dhahayaa Aasiya hooyada sida kama filin balse ugu dambeeyay hooyadiisa ayuu la hadlayaa waxayna u tagayaa ninkii Aasiya shaqada ka buriya balse ninkaasi nabad way la sii heshiisay ninkaasna wuxuu dhahayaa islaanta weligii maanan arkin isla markaana wuxuu isku dayayaa inuu Aasiya shaqada ku soo celiyaan balse Aasiya markii la hadlo ugu dhaho maamulaheedu ku dhaho shaqadii ku soo laaba Aasiya islaan waxa jirta nabad lagu magacaabo rabtay inay shaqada ku soo noqotid. Aasiya waxa dhahaysaa aniga ma ii doqon lagu ciyaarayo bandhigana ay soo badhigtana ma ogolaanayo ardaal oo nagu kala geey Aasiyana shaqadeedii maysan aqbalin. dhacdada kale ee muhiimka waxa kamid ah halka ku ogaada Aasiya dooruuk maysan heshiinin ilaa hada isku yar dhacsan yihiin balse isku dhacsaas weyn ma jiro balse deedu way salaamayaan caadi laakiin sidoo hore iskuma halka dhanka kale qoftii nabhadayd ay kasoo burin doonto yarkii Umar shaqada balse xalqadii hore ay kasoo burtay shaqadan wada ognahay balse Axmed Ilmaas ayaa ku celin doona Umar shaqadiisa halkaasi ayuuna shaqadiisa Umar ka sii wadan doona. dhanka kale qoftii Shanguulahay way dhalaysaa wiil ayana dhalaysaa wiilkaas in badan ayay aad u amaaneen asxaabteeda wiilkaas qurux badan bay ku sheegeen in qurux ugu ma jeedin bal idinkana fikirkiina nala wadaago oo yaani wiilkaasi ku saabsan ku soo biiray reereen miyaa la dhihi karaa adii Shanguuli orhan wiilkaasi ay dhaleen ala kulli hal wiilkii waa u dhashay toddobaad walba waxay nooga dhigayeen bilbil camal oo kale ay nooga dhigayeen 9 toddobaad kadib wiilkii wakaas uu dhashay in ka soo 12 toddobaad la gaaray. dhanka kale gabadhii afra ahayd mobilkeeda ayaa ka dhici doona waxaana sabab noqon doona inuu mobilkaasi ka dhaco ninkii Sarbi ahaa. dhacdo kale waxa kamid ah xalqadan dhacday ninkii Sarbi waxa uu tagi doona maalmaha kamid ah kadib markii Umar shaqada lagu soo celiyay waxa uu tagi doona club Kimiyal dhigara magaciisa wan iloobay clubkii adii aabihi iyo nabahada isla lahayn uu tagayaa waxaan isku dayayaa Umar shaqada laga buriyo ama uu ka dhigo mid waxaday oo lacag uu meel dhigay ku hoos qaado jeebka gashanaya balse nasiib wanaag waxa arkayay yarkii lagu magacaabayay Tolga ayaa arkayay wax walba isla markaana markuu isku dayay inuu Umar dhoo lacagta Umar baaxday oo Umar la haystayna Tolga ayaa wax walba fashili doona lacagtan ugu dambeeyay waxa laga heli doonaa jeebka Sarbi ayaa laga heli doonaa lacagta ugu dambeeyay. dhanka kale nabahad ilaa hadda waxay isku dayaysaa inay kala fogeyso dabcan Aasiya iyo dooruuk wayna ku guuleysanaysaa badi inay kala fogaadaan balse fursad kale ay helaysaa fursadaas oo ah maalmaha kamid waxay arkaysaa Shawaali gabadheeda Yaasmiin oo wada fadhiyo isla markaana way la soo fadhiisanaysaa way wareysanaysaa waxay dhahaysaa idinkaadii u faraxsantii balse aniga wiilkayga waqtiga aniga lama qaato balse Yaasmiin ayaa ku dhahaysaa anaga film ayaan aadayna waa caadi wiilkaaga nagu soo darsantiin isla markaana afar tagad ay soo qaadanayaan filmkaasi ayna si wada jir u daawan doonaan Yaasmiin iyo dooruukna isfahmi doonaan. halka dhanka kale Yaasmiin iyo Umar xaaladoodu aad u wanaagsan tahay isla markaana ay si fiican u macaamilayaan balse gabadhii Aasiya ahayd arrinkaasi kuma faraxsan wayna ka xanaaqday. dhanka kale ninkii Caakif ah maalmaha kamid wuxuu tag doonaa qoftii goonu lahayd waxaanu ku dhahayaa markii aad Shanguul caawin weyday ee aad meesha taagneed aniga waan ku arkayay Shanguul aniga ee dhakhtarka keenay haddii aad lacag isiin weyd oo yani bangiga oo laga xiray isoo furi weyd lacag ay laga baahan yahay anigana odagaaga oraan iyo waxba u sheegaya sidaas ayaan ninka ku waayaysaa balse qoftii goonu lahayd ugu dambeeyay way aqbalaysaa inkastoo la yaabtay markuu lacagta dalbaday balse Caakif wuxuu dhahayaa aniga nin weyn baan ahay ee lacag ma dalban ee waxaan dalbaday wax normal oo dadka ka dhaxdhaca isdij ayuu ku dhahayaa waxaan ku dhahay samee waxaad rabtaan sameeye. hadaba dhanka kale waxaan arkaynaa
beerkii IBK ood moodo in aysan weligood istagaalin islamarkaana si aada u wada faraxsan islamarkaana maalmaha ka mid ah beerka waxa uu iman doonaa qoftii IBK ahayd ilmihii yaraa ayayna tusaysaa waxaad moodaaba labadan inaysan weligood isu soo dagaalin si fiicanna way u wada macaamilayaan islamarkaana wiilka yaraa ayuu beerka ayay tusaysaa balse beerka mar dambe uu iska laabanaya sababtoo ashin gulbu ka dhacaya inay aragto ugu dambeyntiisa waa uu iska laabanaya haddaba yarkii beerkii ah markuu laabtay kadib qolka waxaa soo gali doona uldaan islamarkaana wuxuu baarayaa khaanadaha hooyadiisa wuxuuna ka helayaa mobile oo fideogii qadiir markii gaariga la tiirsiinayey uu ku jiray mobilkana wuxuu go-aansanaya inuu cafra siiyo maadaama cafra mobilkeedu ka tatabay islamarkaana aysan mobilkii isticmaali karin mobilkiisu u wadi wuxuu u geenayaa gabadha afra ahayd wuxuuna ku dhahayaa hoo afraaya qaado mobilkan lama isticmaalayo waa mobilkii hore hooyada way iska tuurtay mobilkan kusii sug ayuu ku dhahayaa cafraana way ka aqbalaysaa ugu dambeyntii codsigiisa wildaanna waxa uu imanayaa qolkii toolga iyo leyla ay qol ay kareystaan ayuu imanayaa kadib qolkaasna wuxuu ku sugay yarkii toolga ayuu sugay toolga oo xilliga shaqada kasoo baxayay message u diray wuxuu ku dhahay war ciyaartu way bilaabmatay maxaa kugu dhacay toolga iyo toolgana wuxuu dhahay dhaxan soo socda كل واحد داونيين كوبك عالم كأفليا أبين كاسن واحد صديق كره واحد داونيين مراكية فرنسيسكا صوته أفر إشكور بعد أفر إشكور إلى الدبي إلى تاع حلقة تركيا ده تضبط والبابا حلقة وبتاع هذا واحد سي وضعنا فعل ذينا مركا كدي ولجانو ماشي سكفر دي أنا سي بدر وحاي من دونه أوديجي داري تولجا ترهان oo soo ogaaday meesha galaan isla markaan urjaan ay ku dhahay war waxa ka qaldan labadii toqon hadda ii wac isla haddadan wac toolga halkuusa jooga wuxuu dhahay toolga shaqadu jooga hadan ku wacaya mudan yara sug urjaan xoogaa way yara cabsanaya ayaa filaya marka wuxuu wacaya toolga ku dhahay war aabaha yimid sida u dhaqsiyaha badan bal ku kaalay toolgana waa uu iman doonaa toolga markuu yimaado kadib aabiibu ku dhahay stage up bal anaga halkan iska deganay odaygan intuu xanaa ku dhahaya maaniga la aanteed nooshin aniga ay iga dooratay noloshan faqriga Soomaa waridika maxaa ka qaldan ma sidaan ay soo barbaariyay halkaas waa calaacal ku bilaabaya toolga wuxuu naxayaa markuu arko inuu odaygu wato baskoolad ama xabad sa u taqaantid baskoolad in la dhigi karaa tan yar buutay markaas kadib wuxuu ku leeyahay abi stage waa maxay teeda kale waxna soo qaadatay kadib uu ka xanaajinayaa toolga badaya tan inta waxan maxaa u soo qaadatay maxaa la cabsanaysaa maskiin ayaa tahay hadda ayaan ku sheegaya maskiin ayaa tahay kadib intuu odaygii taraana xanaaqay u dhahay war maanigu aabbaha saa idla hadlaysaa xabadii ayuu soo saaranaya isla markaana uljaanaya xagga dambe miis yar buu ku dhufanaya odaygiina wuu suuxayaa waxayna isku dayayaan in ay baxsadaan wayna baxsanayaan odaygiina wuu soo daba ordayaa isla markaana odayga orhaanahayo waqtigaasi baar mise hotel yar agtooda a joogay makhaayad yar agtooda oo caakifna la joogay ay goonu la hadlaysaa waxay ku dhahaysaa orhaano xagee joogtaa orhaano wuxuu iyagoo isdagaalsada maalmahan buu isdagaalsanayeen teeda kale waan dadejinaya dee saxaabteeda iga raalli noqda muusa insha allah idiin soo faahinaya anigana waxaan isku dayana muuqaalo kale kasoo sameeyo gooskan aan kasoo sameeyo marka oday islaantii goonu lahayd oo orhaan u socotay inay soo qaado oo orhaan guriga keento maadaama baryahanba uu ka maqnaa Shenguula joogay hadda fursad ku heshay inuusan Shenguula joogin oo soo qaato ay heshiiyaan rabto ay waxa dhacaysa in gaarigeeda soo qaadato ninkii uljaanahay ordayo toolga ordaya oo odaygii tarhaan hanu daba ordayo odayga ay gaariga tiirsiinaysaa inuu dhintay in kalma sheegi kari balse gaariga ayaa calaa kulli xaal tiirsiinaysaa musalsalka walaalaha qof walba ku jira dambiilaha iska noqdo annaga waan daawanaynaa oo keliya bal say sirta u fashilanto waa tahay muuqaalka u dambeeya ee xalqada waxaa arkaynaa gabadhii leyla ahayd iyo sidoo kale gabadhii kale ee ahayd dabcan afra ayaa mobilkii uljaan u keenay waxa ku dhahaysaa leyla hoo mobilkan intaad mobile iibsanaysa maadaama mobilkaaga ka timid bal mobilkan iska isticmaal aniga mobilkaygi wuu yara shaqeynayaa adu laakiinse mobile la-aan baaba tahay aniga xoogaa in yar buu shaqeynayaa balse hoo adu leylana way aqbalaysaa waxaa dhahaysaa waa yahay afraayeed inkastoo waqtigaas ay cashar wada diyaarinayeen assignment miyay ka shaqeynayaan calaa kulli xaal mobilkii waxaa qaadanaysa leylana way furaysaa mobilkii waxay dhahaysaa bal yara eeg waxa ku jira kadib waxaa arkaysaa fiidiyoogii qadiir markii gaariga la tiirsiinayey suuse ayaa aqoonsanaysaa waxyaalo badan ayay arkaysaa halkaasayna ku ogaanaysaa suuse inay sabab ahayd ama suuse gaarigeeda in lagu tiirsiyey qadiir qof waliba oo sir ogaada musalsalka waa u dhintaa leylana macluumaadadii u dambeeyaan in lama wadaagin waa ogtihiin 7 ayaan maqnaa leyla asxaabteeda way dhiman doontaa waxay dhiman doontaa xalqadaas soo socda balse xalqada kale ma sheegi karo insha Allah waxaan rajaynaynaa in arrinkaasi laga laabto miskiinta yar iska joogto goos kana mid aad iyo aad u xiiso badan buu hawaan dawade muuqaalka xiga aan rajaynayna goos soo dhigo bayjook kala socda kulli waan budboodo u jeedin in kasoo muhiimada soo qaatay faalada dhameystiran bayjook kala socda asxaabteyda
وانا اقول صاحبكنا خالد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عفمات بني ذي الرجانية دمانتين.